بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Bio Academy kusoo dhawaada Bio Academy Biology Form 4 ayaan ku baran doonaa insha Allah taala maantana. Bio Academy sidii hore ayaan kusoo sheegnaba waa page aan u talagalnay inaan kusoo gudbino maadooyinka scientific ah ee fasalka 12aad hadda la yiraahdo ka faa'iideysi waxaan biology ayaa maanta aan soo gudbinayna hadda la yiraahdo casharkiisa koobaad lesson 1 magaciisa waa Salmaan Cageere. Chapter 1 The Nervous System and Sensory Organs. Chapter koobaad ayaa maanta ka hadlayna hadda la yiraahdo sidaan ognahay biology-ga form 4 wuxuu ka kooban yahay 7 chapter. Chapter koobaad ah The Nervous System and Sensory Organs. Chapter labaad ah Endocrine System. Chapter saddexaad ah Skeletal, Muscular and Immune System. Chapter afraad ah Genetic Material. Chapter shanaad ah Genetics. Chapter lixaad ah Biotechnology. Iyo chapter toddobaad ugu dambeeya ah Biodiversity. Hadda waa biiraado aan gaari doonaa maanta insha Allah waxaan bilaabaynaa chapter koobaad oo ah The Nervous System and Sensory Organs. aan bilaabi doonaa doolida soo socod wanaagsan. Chapter content chapter wuxuu ka kooban yahay kow waa nervous tissue ayaan ogaan doonaa waxay tahay. Number 2 types of neuron waxa uu yahay ama unug dareen waxa la yiraahdo typeskeeda ayaan ogaan doonaa. Nerve impulse dhammaan dareemeed waxa uu yahay inaan fahmi doonaa. Synapse oo ah space u dhaxeeya laba neuron, neurotransmitters iyo dareen gudbiyaasha ayaan ka hadli doonaa. waxaan kaloo ka hadli doonaa structure qaab dhismeedka of nervous system habdhiska dareemeedka qaab dhismeedka uu samaysan yahay. waxaan kaloo ka hadli doonaa ama ka kooban yahay chapterkan central nervous system habdhiska dareemeedka ee bartamaha ah iyo peripheral nervous system oo ah habdhiska dareemeedka ee dhinacyada. ugu dambeyn chapterkan wuxuu ka kooban yahay healthy problems dhibaatooyinka caafimaad ee nervous system habdhiska dareemeedka iyo senses oo ah sensory organs xubnaha dareemayaasha oo isha iyo dhegta ah. Okay, chapter objectives chapterkan markaan oo dhamaado waxaan ka baranaynaa waxaan ka faa'iideyn maxay ardayga marka uu chapterkan uu dhamaado waxa laga rabaa su'aalaha soo socda inuu ku jawaabi karo ama uu classification ama si taxtan ku jawaabi karo. Kow describe inuu qeexi karo structure qaab dhismeedka and types of neuron qaab dhismeedka iyo typeska neuronska ay leeyihiin oo dareenka ay leeyihiin inuu sheegi karo ama qeexi karo. Summarize inuu khulaasayn karo electrical conditions xaaladaha korontada chemical conditions iyo xaaladaha kiimikaaleed that characterize kuwaas oo lagu astaameeyo the resting potential farqa nagaanshaha. Okay, number 3 ay raade ardayga marka uu barto chapterka waxa laga rabaa inuu ku sameyn karo outline inuu mulaaxadeyn karo ama uu dul mari karo electrical and chemical changes isbedelada korontada iyo isbedelada kiimikeed that occur kuwaas oo ka dhaca neuron inta loo guda jiro action potential farqa shaqada. Explain oo sharxi karo the role doorka neurotransmitters dareen gudbiyaasha ay ku leeyihiin in transmission gudbinta signal across synapse. fariinta sii maraysa waxa lagu magacaabo space-yada u dhaxeeya laba neuron doorka ay leedahay ay ku leeyihiin neurotransmitterska. waxaa kaloo laga rabaa ardayga inuu sharaxaad ka bixiyo ama uu discuss gareeyo the structure qaab dhismeedka and function iyo shaqada brain maskaxda and spinal cord inuu ka bixin karo discuss. State inuu sheegi karo types qaybaha and roles iyo doorka peripheral nervous system ay leedahay. Okay, outline inuu mulaaxadeyn karo the disease cudurrada nervous system cudurrada ka dhasha ama ka imaan kara inuu sheegi karo ardayga. ugu dambeyn ardayga waxa laga rabaa discuss inuu discuss gareeyo ama ka doodi karo the structure qaab dhismeedka and function iyo shaqada of eyes indhaha and ears iyo dhigaha. Okay, aan ku bilowno nervous system maxaa la yiraahdaa? The nervous system habdhiska dareemeedka maxaa la yiraahdaa? Okay, nervous system waxaa leenahay is a highly organized network of cells waa shabakad unugyo ah oo si sare u habaysan that detects kuwaas oo ogaada ama dareema changes isbedelada and control hadana maamula metabolic process nidaamyada dheefshiidka mental maskaxda and physical activity iyo howlaha tuleed iyo maintain homeostasis iyo waxa kale ay joogteeyaan xasiloonida jirka gudihiisa internal environment jirka gudihiisa ayaa laga yaqaan homeostasis. aan ku celin nervous system waxaa leenahay waa is a highly organized network of cells waa shabakad unugyo ah oo si sare u habaysan that detects kuwaas oo dareema ama ogaada changes isbedelada and controls hadana maamula metabolic process nidaamyada dheefshiidka mental maskaxda and physical activity iyo howlaha duleed and maintain sidoo kale waxa ay joogteeyaan homeostasis oo ah xasiloonida jirka gudihiisa. The nervous system habdhiska dareemeedka marka is made up of waa mid ka samaysan billions of highly specialized cells balaayiin unugyo ah oo si khaas u habaysan
colored kuwaasoo lagu magacaabo neurons unugyo dareen. waxaan dhahnay the nervous system habdhiska dareenwadka is made up of waa mid ka samaysan billions balaayiin of highly specialized cells unugyo si khaasa u diyaarsan colored kuwaasoo lagu magacaabo neurons unugyo dareen lagu magacaabo. Okay, the nerve tissue marka nudaha dareenka is composed of waa mid ka kooban neurons unugyo dareeno and neuroglia iyo unugyo dareen laawayaal. the neurons marka unugyo dareenada waxaa la dhihi karaa nerve cells unugyo dareen. working units waa halbeegyada shaqeeya of nervous system ee habdhiska dareenwadka that generate kuwaasoo dhaliya ama abuura and transmit haddana gudbiya nerve impulses dhambaalada dareenka waayo halka the neuroglia unug dareen lawayaasha do not conduct aysan gudbin impulses fariimaha ama dhambaalka. instead taa beddelkeed marka they support waa kuwa taageera and protect difaaca the nervous cells unug dareenka. waxaan dhahnay the nervous tissue nudaha dareenka wuxuu ka kooban yahay dhahnay neurons unug dareeno iyo neuroglia. ayaga markaan qeexaynaa waxaan leenahay neurons waxaa la yidhahdaa the working units waa halbeegyada shaqeeya of nervous system ee habdhiska dareenwadka that generate kuwaasoo dhaliya ama abuura and transmit gudbiya nerve impulse dhanbaa dareemeed. intaas waa qeexitaankiisa neuron. qeexitaano badan ayuu leeyahay kan hadda buug uu qorayo wuxuu leeyahay working units of nervous system that generate and transmit nerve impulse. waxaa kaloo dhihi kartaa neuron is a basic unit of nervous system waa halbeega asaaska u ah habdhiska dareenwadka ay ku qeexi kartaa si fudud. neuroglia maxaa yidhahdaa marka do not conduct ayagu shaqa kuma lahan. neuroglia maxaa yidhahdaa unugyo dareen laawayaal ayagu dareen shaqa kuma lahan. marka maxay qabtaa instead beddelkeed marka they support waxay taageeraan and protect ayna difaacaan nerve cells unug dareenkaas ayay difaacaan protect garayaan ay support garayaan laakiin ayagu dareen kama qayb qaataan. okay, structure of neuron qaab dhismeedka unug dareenka marka neurons waxaa yidhahdaa unug dareenada differ waa kuwa ku galgadisan in size cabirka length dhirirka and shape iyo qaabka marka as may range waa kuwa gaarayo waan kuwa gaari kara from several milliliters laga soo bilaabo millilitiro dhowr ah to about meter in length. dhir ahaan waxay gaari karayaan 1 mitir ay gaari karaan marka. waxaan ku arki doonaa sawirka 1.1 oo ah sawirka koobaad chapterka koobaad shows waa mid muujinaya that the neuron in unug dareenku consists of ka kooban yahay 3 main regions saddex qayb waaweyn oo kala ah dendrites laamaha cell body oo ah unug jireedka axon iyo usha marka. okay, aan ku bilaabno dendrites maxay yidhahdaa laamaha ama farqaha. receive waa mid hesha signals baaq ay hesha colored kuwaasoo lagu magacaabo impulses dhambaal dareemeed from kaasoo ka yimaadaya other neurons unug dareeno kale and conduct haddana gudbiya the impulses fariimaha to the cell body jir unugeedka ayuu gudbiya. waxaan dhahnay neurons wuxuu ka kooban yahay structure-kiisa saddex qayb ka kooban oo kale ah dendrites oo ah farqoleyda ama laamaha cell body oo ah jir unugeedka iyo axon oo ah usha dheer. dendrites waxaan leenahay marka laamaha receive way helaan ama receivers waxay helaan signals baaqa ayay helaan ama fariinta ayay helaan kale lagu magacaabo impulses from waxayna ka helaan other neurons kale ama unug dareen kale ay ka helaan and conduct waan u gudbiyaan the impulses fariimahaas to the cell body jir unugeedka ayay u gudbiyaan. a single neuron marka way hal neuron ama hal unug dareemeed may have wuu yeelan karaa many dendrites farqa badan ama laamo badan the nucleus buda of neuron unug dareenka and many the cell organelles iyo xubno kale unugu uu leeyahay found waa kuwa laga helo in cell body ubuucda ayaa laga helaa ama jir unugeedka ayaa laga helaa. maxaa lagu rustaado a single neuron hal unug dareemeed may have uu yeelan karaa many dendrites farqa badan ayuu yeelan karaa. okay, the nucleus buda of the neuron ee unug dareenka and many cell organelles iyo xubno kale cellka uu leeyahay. haddaba cell organelles maxaa la yidhahdaa? cell organelles waxaa la yidhahdaa cellka waxaan ognahay inuu ka kooban yahay cell membrane, cytoplasm iyo nucleus. cell organelles marka waxaa la yidhahdaa cytoplasmka waxaa ku jiro endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi body, ribosomes kuwaas waxaa loo yaqaanaa waxaa lagu magacaabo organelles ayaa loo yaqaanaa marka. found waa kuwa laga helo in cell body
waxaa laga helaa jir unugeedka ayaa laga helaa. Lastly ugu dambeyn axon. Axon maxaa yidhahdaa waa usha dheer. Carries waa mid qaada mid xambaarta the nerve impulse dhamaal dareemeedka from iyadoo kasoo qaadaysa cell body jir unugeedka to another neuron iyadoo u gudbinaysa neuron kale aan muscle ama muruq ay gudbi kartaa. Unug kale ay gudbi kartaa ama muruq ay gudbi kartaa marka. Okay, insha Allah page-ka marka intaan ka gudbin slide-kan maxaa muhiimad aan kaleena marka. Waxaa laga rabaa marka la yiraahdo structure of neuron wuxuu leeyahay saddex qayb waaweyn inaad sheegi karto dhigi kartid. Saddexda qayb waaweyn neuronku uu leeyahay waa dendrites oo ah laamaha, cell body oo ah jir unugeedka, axon oo ah usha dheer. Okay, haddii lagu weydiiyo lagu yiraahdo dendrites waa maxay dendrites shaqadeedu maxay tahay? Receive signal called impulse from other neurons and conduct the impulse to the cell body. maxaa leedahay receive way heshaa signal isbaaqa ay heshaa ama fariimaha kale lagu magacaabo impulses and from other neurons waxay ka heshaa waxaa lagu magacaabo neurons kale ama unug dareen kale and conduct waxay u gudbisaa the impulses fariimahaas to the cell body ubucda ayay u gudbisaa ama jir unugeedka ayay u gudbisaa marka. Okay, single neuron marka hal neuron may hafu yeelan karaa la yiraahdaa muxuu yeelan karaa many dendrites farqa badan ama laba badan. The nucleus buda of the neuron yung dareenka and many cell organelles iyo xubno kale oo unugu leeyahay found waa kuwa laga helo in cell body jir unugeedka ayaa laga helaa. Waxaa lagu dhihi karaa cell body maxaa ku jira waxaa leedahay nucleus ayaa ku jira iyo many cell organelles ayaa ku jira. Axon shaqadiisu maxay tahay? Carries waxay qaadaa the nerve impulse ama dareemeedka from the cell body waxay kasoo qaadaa jir unugeedka ay kasoo qaadaa to another neuron kale ay gudbisaa aan muscle ama muruq ay geysaa marka neuron kale gudbinaysaa ama muruq ay geynaysaa marka. Okay, structure of neuron waa kala marka qaab dhismeedkiisa. Kuwa marka waxaa loo yaqaanaa dendrites laamaha ayaa loo yaqaanaa. Dendrites ereyga Greek waa dendro ayuu ku yimid. Dendron waa ereyga Greek macnaheedu tahay tree ayaa loo yaqaanaa marka. Halkaa waxaa ku qoran axon. Axonka muxuu yahay? waa usha dheer xiriisa ayaa loo yaqaanaa axon. Okay, waxaa kaloo jiro waxa lagu magacaabo myelin sheath. Myelin sheath maxaa yiraahdaa? waa xub dufaneed. xub dufaneed wuxuu yahay xubka hareeraya axon ku daaran ayaa loo yaqaanaa. waxaa jira ayaga sidoo kale Schwann cells oo ah unugyada sameeya myelin sheath-ka xub dufaneedka ay sameeyaan. waxaa kaloo leeyahay structure of neuron node of Ranvier. kuuskuuska uu soo saaray ninka lagu magacaabo Ranvier nin magaciisa waa kuuskuuska maxay tahay waa laba myelin sheath kasta u dhaxeeya ayaa loo yaqaanaa node of Ranvier. Axon terminal meesha axonka ku dhamaado marka intaan ayuu ka kooban yahay waxaa lagu magacaabay structure of neuron. marka nodes of Ranvier iyo Schwann cells iyo myelin sheath iyo kuwaas waa iska kuwa hoosaadi ah laakiin three main regions saddexda qayb waaweyn oo leeyahay waxaa lagu magacaabo structure of neuron waa dendrites oo ah farqoleyda ama laamaha, cell body oo ah waxaa lagu magacaabo jir unugeedka oo ku jiro nucleus oo ku jiro iyo axon oo ah usha dheer. In human body jirka bini'aadamka waxaa jira many neuron neurons waxaa jira unugyo dareeno that have kuwaasoo leh myelin sheath waxay leeyihiin xub dufaneed ay leeyihiin waxaa la dhihi karaa medullated sheath ayaa la dhihi karaa. muxuu yahay markuu yahay which kaasoo fatty material kaasoo ah qalab dufaneed wax dufan ka samaysan that rabbis kaasoo hareereya around rabbis kaasoo daboola around hareera the nerve cell projections ay unug dareenka waxyaabaha kasoo taagan ayuu daboolaa. ani waxaa kaloo daboola neurons unug dareenada that do not have kuwaasoo aan lahayn waxaa lagu magacaabo myelin. Okay, myelinkan waxaa la yidhahdaa marka unugyada qaarkood way leeyihiin kuwa qaarna malaha marka. kuwa maalin kale waxaa la yiraahdaa waa kuwa high speed leh marka speedkooda ama xawaarooda aad u sarreeya fariinta aad ay gudbiyaan. kuwa aan lahayn low speed waaye fariintooda xawl uma gudbiyaan marka. sidaa darteed maxaa qabta marka way asigu waxaa yiraahdaa rabbis waa hareereya ama daboola around hareeraha nerve cell projection oo hareereya ama daboola iyo waxaa kaloo daboola waxaa lagu magacaabaa neurons that do not have myelin waa kaloo qayb ayuu ka qaataa marka. types of neurons inta loo qaybiyo marka. neurons waxay unug dareenada classify waa loo kala saaraa according to marka loo eego to the number tirada of dendrites laamaha marka loo eego that arise from kuwaasoo ka imaanaya the cell body jirka unugeedka into 4 types afar qayb loo qaybiya which are kuwaasoo ah main anaxonic, unipolar, bipolar iyo multipolar. anaxonic maxaa la yiraahdaa waa neuron aan axon lahayn. anaxonic neuron aan axon lahayn. unipolar hal cirif leh unipolar waxaa la yiraahdaa waa hal cirif leh maxaa laga wadaa marka waa sidoo kale arki doonaa insha Allah taala. bipolar aysan waxaa la yiraahdaa waa laba cirif leh multipolar waa cirif leh badan. soo halka kugu qoran waa anaxonic neuron kalkan ku yaalo wax axon wala u dheer malahan. kan waxaa la yiraahdaa waa bipolar sababta kuna maxay tahay
waxaad fiirinaysaa cell body dhinacana waa u jira dhinacana waa u jira waa bipolar laba cirif la waa cell body dhinacana waa u jira dhinacana waa u jira bipolar ayaa loo yaqaanaa kan waxaa loo yaqaanaa multiple unipolar ayaa loo yaqaanaa unipolar okay unipolar sidoo ku noqday wuxuu ku noqday cell body-ga hal dhinac ayuu jira dhinacan ayuu jira dhinacan kale ma jiro shaqo kuma laha waa bipolar aan yiraahdo waxaa loo yaqaanaa unipolar ayaa loo yaqaanaa okay kan waxaa yiraahdaa multipolar cirif la badan ayaa loo yaqaanaa cirif la badan ayaa loo yaqaanaa marka okay neurons marka loo eego ayaa classified waa la kala saaraa according to marka loo eego to the number of dendrites tirada farqaha arise from ka imaanaysa the cell body ugucda ama jir unugeedka into 4 types afar qayb loo qaybiyaa maxay ka yihiin kuwaasu anaxonic unipolar bipolar iyo multipolar loo qaybiyaa multipolar ayaa loo qaybiyaa okay types of neuron their function shaqada marka laga fiiriyo neuronka waa la qaybiyaa functional shaqa ahaan marka loo eego there waxaa jira 3 types saddex qayb ayaa jira of neuron group kuwaas oo loo qeexay according to marka loo eego to the direction jihada of impulse conduction jihada fariinta loo gudbina ama ka imaanaysa ama aadayso marka loo eego waxaa loo qaybiyaa saddex loo qaybiyaa ashamsi ka muuqda in figure below soo ku qoran saddex loo qaybiyaa saddex maxay waa sensory neuron motor neuron iyo relay neuron loo qaybiyaa sensory neuron waxaa waaye waa fariin qaade haye motor neuron maxaa yiraahdaa waa fariin soo celiye relay neuron wuxuu yahay waa xiriiriye wuxuu isku xiriiriyaa sensory neuron iyo motor neuron ayuu xiriiriyaa marka sensory neuron iyo motor neuron ayuu xiriiriyaa okay hadaba meesha la socon waxaan kor ugu noqono types of neuron in structure marka laga fiiriyo waxa loo qaybiyaa afar loo qaybiyaa marka loo eego number of dendrites marka lagu yiraahdo neuronka afar loo qaybiyaa meeshan inta badan ardaydu way ku wareeraan types of neuron marka lagu yiraahdo degdeg si fiiri wax meesha ku qoran types of neuron according to number of dendrites hadad maqashid waxaad leedahay waa anaxonic unipolar bipolar iyo multipolar cirif laawe hal cirif le laba cirif le iyo cirif la badan okay marka lagu yiraahdo shaq ahaan neuronka imisa loo qaybiyaa waxaad leedahay saddex loo qaybiyaa saddexda maxay kaliya marka waxay yihiin waa arki doonaa waxaa waaye waa number 1 sensory neuron number 2 motor neuron number 3 oo ah relay neuron saddexdaas ayaa loo qaybiyaa shaqo ahaan marka loo eego neuronka sawirka marka wuxuu ka hadlayaa types of neuron ka hadlayaa sensory neuron function marka laga fiiriyo sensory neuron motor neuron iyo relay neuron san ku soo sheegnay sensory neuron waa fariinta waa kan qaada ee maskaxda geeya maskaxda sababta loo geenayo waxay tahay si loo soo turjumo loo soo process gareeyo ayuu geenayaa shaqadiisa waa intaas marka okay motor neuron shaqadiisa maxay tahay motor neuron shaqadiisa wax kale ma ahan fariintii la process gareeyay ama la turjumo la fasiray maskaxdu ay fasirtay ayuu dib u soo celinayaa wuxuu ku soo celinayaa xubintii marka hore laga qaaday ayuu ku soo celinayaa marka relay neuron wuxuu xiriyaa waxa lagu magacaabo sensory neuron iyo motor neuron wuxuu u shaqeeyaa marka marna motor ahaan u shaqeeyaa marna sensory ahaan ayuu u shaqeeyaa labadaba waa u shaqeeyaa markaas saddexdooda aan dul marno okay number 1 sensory neuron fariin qaade ay sensory neuron maxaan leenahay waxaa la dhihi karaa aberrant neuron ayaa loo yaqaanaa this neuron loo garanayno gets information warbixin ayay helaan about ku saabsan what is going on waxa ka socdo inside gudaha and outside iyo banaanka of the body jirka and bring waxayna geeyaan that information warbixintaas geeyaan into brain maskaxda ayay geeyaan or ama spinal cord ayay geeyaan in order to be processed loo nidaamiyo sensory neuron maxaan dhahnay waxaa la dhihi karaa aberrant neuron ayaa loo yaqaanaa aberrant neurons ayaa loo yaqaanaa fariin qaadayaal these neurons unugareenadaas get information warbixinta ayay helaan about ku saabsan what is going on waxa ka socdo inside gudaha and outside iyo banaanka of the body jirka marka waxay helaan information ku saabsan muxuu ku saabsan waxyaabaha jirka gudihiisa ka socda iyo waxyaabaha banaankiisa ka imaanaya marka fariinta marka way qaadayaan intay geynayaan marka brainki waxayna geeyaan information warbixintaas to the brain maskaxda ayay geynayaan horba spinal cord xangulaha ayay geynayaan marka in order to be processed loo nidaamiyo loo habeeyo loo yiraahdo waxa socda waxaas noocaas si loo yiraahdo motor neuron asii muxuu yahay waa fariin soo celiye waxa loo yaqaan aberrant neuron kii hore muxuu ahay aberrant neuron kana waxa la yiraahdaa aberrant neuron these neurons unugareenadaasi get information warbixinta ayay helaan from maxay ka helaan ama ka soo qaadaan the brain maskaxda oo spinal cord xangulaha ayay ka helaan and convey waxayna u sii diraan commands amaradaasi to the affected organ xubintii marka hore waxyeelada ka soo gaartay ama fariinta laga soo qaaday ay dib u celiyaan
sidaas waxay noqon kartaa xubintaas muscles murqa ayay noqon kartaa oo ama glandis qanjir ayay noqon kartaa marka ama qanjiro ayay noqon kartaa maxaa lagu yiri motor neuron development la yaqaan these neurons waa mudarino get information warbixin ayay helaan from waxay ka helaan brain maskaxda ayay ka helaan oo ama spinal cord xankulaha and convey waxay nagayaan command samaradaas to the vector organs xubnihii markii hore waxyaalaha ka timid ama fariinta laga soo qaaday dib ugu celiyaan sida muscles murqaha oo ama glandis qanjirada ugu dambeyn relay neuron marka relay neuron waxaa leenahay waa unug dareen isku xira muxuu isku xiraa motor neuron iyo waxa isku xiraa sensory neuron asaga ku soo kuleeyahay waxa loo yaqaan ama la kara conductor loo yaqaan xiriiriye haye intermediate waxa la kara mid dhaxaada oo u dhaxeeya motor iyo sensory oo ama associative mid xiriiriye ama la xiriira aan qeexna marka maxaa leenahay which are found waa mid laga helo haye only clear in the brain maskaxda ayaa laga helaa aan spinal cord iyo xangulaha kan marka meel kasta laga helo gacanta iyo lugaha iyo laga helo maskaxda iyo xangulaha un baa laga helaa kana waa mid isku xira one neuron hal neuron to another neuron kale isku xira hal neuron iyo mid kale ay isku xiriya marka shaqadiis maxay tahay they receive waa kuwa hela information xog ama warbixin from waxay ka helaan other neurons ama dareenada kala either midkood marka wuxuu ka helaa sensory neuron fariin qaade haye or ama wuxuu ka helaa interneuron kan dhexaadka ee motorka iyo relay ku dhexe marka transmit wuxuu u gudbiyaa information warbixintaas to other neurons wuxuu u gudbiyaa neurono kale oo uu u gudbiyaa either wuxuu u gudbinayaa marka waxa lagu magacaabo motor neuron or ama wuxuu u gudbinayaa interneuron ayuu gudbinayaa marka relay neuron ka soo shaqeeyay wax kala ma ahan wuxuu xiriiriyaa sensory neuron iyo motor neuron ayuu xiriiriyaa motor neuron iyo sensory neuron ayuu xiriiriyaa thank you وما سنتين عشان كده تاسو نقول الدول يرادو هذه هذا وما سنتين وحي عن صحنا وحي هذا من الله وحي عن قلدنا ما في شيء داني كهذين وما سنتين وحي كومنتيات إن شاء الله وأنا صدري كرتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته